Ma u baahan tahay inaad ogaatid passwordka internet walba? Haddii ay jawaabtaadu tahay haa, muuqaalkan waa muuqaalkaaga. Ugu horreyn, assalaamu calaykum. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Sheekh Cali. Channelka iga daawanaysid waa Mustaqbal Technology. Haddii ay tahay markii ugu horreyso aad soo booqato channelkan, subscribe saar si aan ku dhaafin muuqaalada xiga. Sidoo kale waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalkan gaarsiisin konton like. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa saaxiibkay Warsame oo su'aashan isoo weydiiyey. ugu horreyn, moobilkaaga ayaad waxaad kusoo degsanaysaa applicationka loo yaqaano QR and barcode scan. Google Play Store ayaa ka helaysaa, waa qoraysaa QR and barcode scan ayaad qoraysaa. Waa kana midkan ugu koreeyo QR and barcode scan. Okay, markaa qortid waa kana applicationka kuu soo baxay. Midkan waa midka saxda u baahan tahay. Moobilka applicationkan moobilkaaga ayaad kusoo degsanaysaa ugu horreyn. Markaad soo degsatid kadib waxaad raadinaysaa oo aad u baahan tahay internetkii aad rabtay passwordkiisa inaad ogaatid hal qofood oo internetkaas u xiriirsan yahay. Yacni tusaale ahaan internet diriska u baahan tahay, yacni hal qofood oo internetkaas u shaqeynayo oo u xiriirsan yahay. Passwordka mar hore loo geliyo taleefankiisa ayaad raadinaysaa, taleefanka ayaad ka qaadanaysaa. Okay, ha taleefanka dhanka bidix jiro waa moobilkii qofkii kale. Markaad soo hesho kadib waxaa imaanaysaa qaybta setting ayaa galaysaa. markaa gashid kadib waxaa galaysaa connections. kadib waxaa galaysaa meeshaan ku qoran tahay wifi. sida u jeedna internetka waa kacaya. marka internetka saas kugu soo qabto waxaad taabanaysaa internetka geeskiisa meeshaan ay settingka, calaamadda settingka ayaa taabanaysaa. markaad taabato kadib qaabkan ayuu kugu soo bixi doonaa. marka kugu soo baxo waxaad sameynaysaa qaybta hoose meel ay ku qoran tahay QR code ayaa taabanaysaa. Okay, hadda uu kuu soo baxay meeshii loo baahnaa. marka intaan kuu soo baxo kadib waxaad tagaysaa moobilkaaga, waxaad galaysaa applicationkii aad soo degsatay. sidaan ayuu noqon doonaa. scan ayaa marsiinaysaa. waxaad sameynaysaa marka kii xaggaas kaaga soo baxay scankiisa ayaa marsiinaysaa. scan marsii. Okay, scan hadda waa marsiiye. meeshaan waxaa iga soo bixin 3 option. option kood oo ah connect, yacni inaan internet ka xiriirsado bilaa wax aanoonan gelinbo in hadda connected oo ii xiriirsamo. 2 meesha waxay soo baxay inaad password copy dhaho, iyo 3 inaad share gareeyo. qaybta ka koreysan waxaa iga soo baxayo internetka magaciisa, qaabkiisa iyo passwordka. yacni passwordka caadi ah oo arkaysa sida u jeedino. hadda waa idinka qarinayaa. marka adina waa arki kartaa internetkaas passwordkiisa. haddaa rabtid passwordkaas ayaa caadi inaad u qoratid ayaad geshi kartaa, ama inta meesha aad joogtid ayaa waxaad taaban kartaa halkan ay ku qoran tahay connect. haddii aad taabatid si toos ah kugu xiriirsami doonaa. sidoo kale waxaa jiro taleefano qaar oonan lahayn meeshaan QR codekan. yacni taleefano qaar oo laga geli karin jiro oo scan laga marsiisan karin. marka iska fiiri nooca taleefanka. hadda midkan oo aan scan ka marsiinayno waxaa waaye Samsung caadi waaye, weliba eeyaasha waa A10 waaye. marka taleefano qaar oo waxaa jira aanan shaqeynin oo yacni QR codekaas aanan lahayn. marka iska fiiri, waxaa raadaysaa mid QR codekaas leh oo weliba noocyada hadda taleefanada ugu dambeeya camal ah midkaas ka scan gareyso. application keliya ayaa soo degsaysa. qofkaas waxba ma soo dejinaysid. qofkaas keliya waxaa uga baahan tahay halkaas ay ku qoran tahay QR code. meeshaas keliya ayaa uga baahan tahay. meeshaas ayaa taabanaysaa. kadibna adiga scan ayaad marsiisanaysaa. kadib wax walba oo information aad uga baahan tahay sidaas ayuu kugu soo bixi doonaa. haddii aad muuqaalkan wax un ka faa'iiday, ha iloobin haddii aad ku cusubtaa channelka inaad subscribe saartid. sidoo kale like konton like bis muuqaalkan gaarsiiya, una sii sheergaya asxaabtaada sida ayagana uga faa'iidaystaan casharkan. haddii ay jirto su-aal aad qabtidna waxaad igu reebi kartaa qaybta commentiga. sidoo kale 3,000 waxyaalaan nooga dhiman haddii ay gaarno waxaan sameyn doonaa shout out. marka qofkii u baahan shout out ayaan soo intaa 3,000 ka gaarayo insha Allah. marka 3,000 gaarno kadib shout out ayaan sameyn doonaa. dadka qaar ayaan u sameyn doonaa, weliba dadka subscribe ka ah oo subscribe ii saareen ayaan u sameyn doonaa insha Allah.